qodobka konton iyo afraad marka la eego arrimaha dibadda difaaca qaranka jinsiyadda iyo socdaalka iyo siyaasadaha lacagta wuxuu awood u siinayaa dawladda federaalka ah anigu maanta haddii dawladda federaalku tiraahdo lacagta dhaqaalaha reer galmudug u yaala dubay u yaala ama sacuudiga u yaala ama dad ka jooga ama xoolaha jooga Soomaaliya in la dhoofiyo ma waxaan kala tashanayaa ninka xamar jooga kala tashan maayo hadda go'aanka aad qaadateen dawladda ma kala tashateen maadaama iyadu ay mas'uul ka tahay dalka dawladda federaalka haddii aan dawlad goboleedyadu jirin dawlad goboleedyada ay coordinator u tahay dawladda federaalka saa daraadeed inaanu qaraabano oo aanu carrada iyo dalkayga u tashano waa wax naga go'an weeye nimanka hadda ka hadlay kula soo hadlay idinka idinla hadlay oo aad gudoomiye ku-xigeenka gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweyne ku-xigeenku shaqadooda ma aha hawsha siyaasadda anaa hogaamiye ka arrintaas su-aalan kaa weydiin doonaa laakiin arrinta aad hadda ka dhawaajisay ee ah inaad qaraabanaysaan ma waxaad ula jeedaa in maamulka galmudug uu isagu cilaaqaad la samaysanayo dalalka dibadda waxaa weeye dadkayaga iyo dhaqaalaha naga yaala dubay iyo xoolaha aanu dhoofsanayno ayaanu ku danaysanaynaa waa dantayada waayahay hadda xaggeed joogtaa adoo raalli ah aniga hadda abudabi baan joogaa maxaad u joogtaa socdaalka aad imaaraadka u joogto muxuu la xiriiraa maamul goboleedyada kalena waa joogaan aniguna waa joogaa inaanu maaragtay arrintaa lafteeda inaanu saraaxa u siino nidhaano dadkeega waxa naga yeelin annagu siyaasaddaas maamulka sare uu go-aanku qaatay kuma raacsanin haddaan nahay gobolada intaas ayaanu u joognaa marka idinkaa yimid ee laydinkuma marti qaadin aad ula jeedaa ha annagaa nimid ha